Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel Osman Pancher for studying the English language. Dear brothers and sisters, kusoo dhawaada channelkeena barashada luqadda Englishka. Waa anigoo teacher Osman Abdulqaadir Pancher sida caadada inoo ahayd cashirka ka hor intaan cashirkeeni 28 guda galin sida caadada inoo ahayd waxaan isweydiin jirnay laba su'aal. labadeen su'aal maanta isweydiinayna waxay noqonayaan waxaad qoraysaa number 1 waxaad qoraysaa aniga waxaan xishmeeyaa labadaba dadka iyo xayawaanada. aniga waxaan xishmeeyaa labadaba dadka iyo xayawaanada. waa isla fahmnaa umaleena. su'aasha labaad waxaa qoraysaa maxaa yeelay waxaan ahay qof muslim ah waxaana waajib igu ah in aan caabudo Allah adigana. maxaa yeelay waxaan ahay qof muslim ah waxaana waajib igu ah inaan caabudo Allah adigana. waa isla fahmnaa labadaas. maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeeni 28 waxaana ku qaadanaynaa how 5wh waan soo dhameynay. waxaan qaadanaynaa how ayaan qaadanay waa how ayaan qaadana. how waa sidee. okay, erayada nagu cusub markaan fiirino waxaan qaadanaynaa okay, great waa great waa fiican. great waxay kaloo noqotaa weyn. okay, great waxay kaloo noqotaa fiican. erayga kale nagu cusub waxa weeye waa family. erayga nagu cusub kala qaadana waa family waa qoys. family waa qoys. okay, very erayga saddexaad waa aad. very waa aad waa very waa aad. okay, fine waa fiican. fine waa fine waa fiican. okay, 20 horaan usoo baranay. erayga kalaan qaadanayna waa old waa old laba macnay leedahay. old qadiimi, wax qadiimi ah ama duug ah, ama old waxaa la dhihi karaa da ama duq ama da. laba intaas waa lagu macneyn karaa saddexdaas. waa isla fahmnay intaas. okay, waxaan kaloo soo qaadanay young waa dhalinyar. waa young dhalinyar. waxaan kaleentoo dhihi karnaa younger markaad dhahdid younger waa younger markay qoran tahay younger ka yar waay. okay, waxaa kaleentoo jirto then waa then marka laba shay isbarbar ama isbarbar dhigaysid then tan ayaa la isticmaalaa oo ah then. laakiin markay then ay tahay then waa saas. then markay tahay oo ah markay tahay then iyo then ay kaliin. then markay tahay kadib waay. then markay tahay waa kadib. okay, laakiin then markay tahay waa isbarbar dhigid. okay, older waan fahmnay waa duq ama duug. older markay tahay ka weyn ay noqonay. older ka weyn. eraygaasna waa isla fahmnay. intaas waa marka erayada nagu cusub ee cashirkeeni cashirka how. meeshaas waxaa noogu dhamaanaya marka 5wh questions and how. 5wh horaan u soo qaadanay. maantana waxaan qaadanaynaa cashirkeeni 28 how sidee. okay, aan bilowno marka basic conversation kaan bilowno. basic conversation about how aan bilowno. how are you sidee tahay. how are you sidee tahay. okay, anigu am waxaan ahay fine mid fiican.
thank you mahadsanid. Thank you mahadsanid adigu waa macnaha mahadsanid and you adiguna oo taagan marka sidee tahay adiguna. Okay, muxuu yiri maxaa dhahday I am fine waan fiicanahay. Thank you qofka markuu ku dhaho how are you sidee tahay waxaad dhihi kartaa I am fine waan fiicanahay and thank you and you adoo mahadcelintaas oo ah maadaama xaaladeedii weydiisay qof fiican aad tahay macnaha waa mahadsan tahay. Okay, I am fine waan fiicanahay. Thank you mahadsanid and you adiguna and you andada marka isku xiray sameynaysa iyo adigana ma dhehaysid ma fasiraysid and waa isku xir markaas and mar la fasiro iyo way jirtaa. My brother walaalkay and iyo markaas waa fasir kartaa laakiin andada ma fasiraysid waa isku xir. Okay, I am fine waan fiicanahay. Thank you mahadsanid and you adiguna maxaa leedahay marka I am great. Anigu am waxaan ahay great qof fiican qof weyn ma ku fasiraysid qof fiican. Great fine fiican leeyahay macnaha. Okay, erey ka badan waa sii qaadan doonaa insha Allah. I am great aniga waan fiicanahay. Okay, how ayaa la yiri marka how is waa sidee your family qoyskaaga. Family waa qoys, your waa waxaaga. How is waa sidee your family qoyskaaga waa sidee. Okay, how is your sister walaasha waa sidee. How is your brother walaalka waa sidee. meesha family waxaad geli kartaa wax alaala qofka uu leeyahay ama la dhashay ama uu haysto waxaad geli kartaa waxaad dhigi kartaa how is your children. How is laakiin qofka markaa weydiinayso waa inaad hal shay keliya aa weydiisaa. How is your child waa dhigi kartaa waa sida cunugaaga. How is your children. How are imaanaysa markaa jamac weydiin waxay noqonay how are waa sidee your children caruurtaada. How is your family waa sidee qoyskaaga. marka family singularna way noqotaa pluralna way noqotaa. Okay, how is your family waa sidee qoyskaaga. Okay, they ayagu oo ah qoyskaygu. Okay, they are ayagu waa markaan plural ahaan loo isticmaalo fiiri. They ayagu are waa very fine kuwa aad u fiican. They are very fine ayagu aad bay u fiican yihiin. haddaad waxaad dhigi kartaa I am very fine aan hore usoo aragnay. hadda meesha maxaa ku arkaysaa they ayagu are very fine. Verydan maxay muujinaysaa waa sifo waxay muujinaysaa in fiicnaanshaha qofka uu yahay mid aad u fiican. Okay, fine fiican waa dhigi kartaa they are fine way fiican. They are very fine aaday u fiican yihiin waa dhigi kartaa they are very fine aaday u fiican. Thanks mahadsanid maadaama qoyska ii weydiisay ayagu way fiican yihiin. Thanks mahadsanid waa macnaha they are very fine ayagu way fiican yihiin. Thanks mahadsanid. How old are you. How sidee markaan ku fasiraysa marka how old da'deeba aa leedahay marka are you aad adigu tahay ama si kale u dhig waxaa leedahay how old are you imise jir ah taa adiga. sidee waa da'da adiga ma dhehaysa marka how old are you. How old are you imise jir ah taa adigu. muxuu leeyahay marka how old are you ayaa la yiri imise jir ah taa. I am waxaan ahay 20 years old 20 sano jir. I am waxaan ahay 20 years old 20 sano jir. 20 years 20 sano old jir. isku qabo marka I am waxaan ahay 20 years old 20 sano jir. Okay, maxaa leeyahay marka how old waa imise jir. How old is your brother. How old waa imise jir is your brother walaalka. How old is your brother. meesha brother sister waa lagu bedeli karaa friend waa lagu bedeli karaa waxaa rabta ku bedelan kartaa meesha staa rabtid. imise jir waa saaxiibka marka dhis how old is your friend. walaasha imise jir waa how old is your sister. marka walaalka imise jir waa marka dhis waxaa leedahay how old is your brother. walaalkaaga imise jir marka walaalkee waa walaalo badan haday kula dhasheen magaca raacina waxaa leedahay Xasan.
how old waa imise jir. How old is your brother Hassan? walaalkaaga Hassan waa imise jir ayaa lagu dhahay. My brother Hassan aad marka walaalkay Hassan is younger than me. mujada is younger than me. Then as barbardhig waa is younger than me. aniga wuu iga yar yahay. And he isaguna is waa 16 years old. 16 sano jir. Okay, 16 years old waa 16 sano jir. marka haddana waxaa lagu yiri how old waa imise jir. How old is your sister Aisha? walaasha Aisha imise jir waay. How old is your sister Aisha? markaas my sister Aisha walaashay Aisha is older than me. aniga way iga weyntaa waay. My sister Aisha walaashay Aisha is older than me. way iga weyntaa. Older than me way iga weyntaa. Younger than me way iga yartaa. My sister Aisha is older than me. way iga weyntahay. And she is ayadu waa 22 years old. 22 sano. 22 years old. 22 sano jir weeyaan. Goodbye, nabadgelyo. Okay, bye. waayahay nabadgelyo. hal mar aan ku celina marka anagoo jumlo akhrinayna. How are you? sidee tahay? I am fine. waan fiicanahay. Thank you. mahadsanid. And you? adiguna. I am great. aniga waan fiicanahay. How is your family? waa sidee qoyskaaga? They are very fine. ayagu way fiican yihiin. Thanks. mahadsanid. How old are you? imise jira tahay? I am 20 years old. waxaan ahay 20 sano jir. How old waa imise jir. How old is your brother Hassan? walaalka Hassan waa imise jir. My brother Hassan walaalkay Hassan is younger than me. wuu iga yar yahay. And he is 16 years old. isagana waa 16 sano jir. How old is your sister Aisha? walaashaada Aisha waa imise jir. My sister Aisha walaashay Aisha is older than me. aniga way iga weyn tahay. And she is 22 years old. iyada waa 22 sano jir. Goodbye. nabadgelyo. Okay, bye. marka waxaan u maleynayaa inaan fahamnay cashirkeeni 28aad. hadduu ilaahay yiraahdo asbuucan waxaa cashirada nooga xiga waxay noqon doonaan cashirka new conceptiga anagoo bilaabi doono. arday kasta buugga soo gadan kara soo gato hadii diyaarsado. insha Allah ardayga soo gada karina videoga ka qoran doona hadduu ilaahay yiraahdo. marka anigoo teacher Osman Abdulqaadir Panjar waxaan idin leeyahay haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe dhaho u share garee asxaabta jecel luqadda Englishka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.